warjaalayaal soo dhawaada caawa barnaamijku waa karkar in badan ayaan idin iri waa karkaraysaa siyaasaduye way taqaysaa caawa way taqaysaa dhulgariir siyaasadeed oo weyn ayaa Soomaaliya ka dhacay caawa shirkii magaalada Nairobi kusoo gabagaboobay xogtiisii ugu dambeysay haddaan telefoonka dhiga waan idin sidaa sidoo kale waxaan idin sidaa shirkii Istanbul ka dhacay ee lagu go'aamiyay 11 xisbi ay hal musharax ku midoobeen musharaxaas waa kee waa Saacid Shirdoon oo xilligan dawladda Soomaaliya iyo mucaaradkuba ay walaac ka qabaan awoodda degdega ee Saacid Shirdoon la soo baxay haddaba jaalayaal soo dhawaada Jubaland iyo Puntland ayaa goordhow ku dhawaaqi doona in bishan dhamaadkeeda inay soo dooran doonaan golaha sanatarada ama xildhibaanada aqalka sare warjaalayaal soo dhawaada barnaamijku caawa waa karka wadanka dhulgariir siyaasadeed ayaa ka dhacay wallahi haddaad halkan ka maqan tahay oo markaad shaqada ka soo baxdid aadan kanaalkan yarka ee ugaaska daarood aadan daaran oo aadan xogtaan aadan la socon waad lumaysaa waa ambanaysaa gaarigaaga baakimo koob shaax soo qaado soo dhawow haddaad shaqo haysidna jooji jaalayaal soo dhawaada waxaan idinka codsanayaa marka hore muuqaalkan la gareeya si uu meel fog noogu gaaro aragtidiinuna waa muhiim waliba waxaan rabaa laba qodob inaad aragtidiina ka dhiibataan awoodan cusub ee uu yeeshay Saacid Shirdoon ma laga yaabaa inay u goyso inuu noqdo madaxweynaha xasan bedeli doona sababtoo ah Saacid wuxuu ka dhisan yahay 4 qodob oo tilmaamayo inuu guuleysanayo 4 qodobna waan idin hayaayo mid ay iigu qoran yihiin sidoo kale sida u aragtaan Puntland iyo Jubaland in bishan dhamaadkeeda ay dooran doonaan aqalka sare iyadoo doorashadii lagu heshiin sida u aragtaan taasna ayadana waa idin ka rabaa barnaamijkeena guda galeynaa laba shir oo waaweyn oo caawa siyaasadda Soomaaliya wax badan ka bedelay ayaa Istanbul iyo Nairobi ka dhacay waxaan rabaa shirka ay ku midoobeen 11 xisbi hal xisbi ah inay ku midoobeen waxay taasi na tusinaysaa in mucaarad xoogan uu wadanku yeeshay ilaa 12 xisbi ayaa ku midoobay xisbi la yiraahdo midowga haybad qaran waxaa gudoomiye ka ah Dr. Saacid Shirdoon oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax hadda xilka u taagan waana musharaxa xisbigan caawa la shaaciyay u tartami doona musharaxa xisbigan rag waaweyn oo siyaasadda Soomaaliya wax badan ka gooya ayaa maaragtay ka soo muuqday maanta duhuradii ayaan qoraal soo qoray oo bogga Facebook aan ku leeyahay baan ku soo qoray waxaan soo qoray in dawladda Soomaaliya iyo xataa mucaaradkii Sheekh Shariif ay ka mid ahaayeen ay walaac ka muujinayaan awoodda degdega ee uu la soo baxay Saacid Shirdoon inta markaan soo qoray dhinaca teamka marka la fiisho dad badan ayaa maaragtay warkay been u mooday war siyaasadda dhalaanu ka fiirsanaa dhalo ayaynu ka daawanaa wax kastoo socdaan ogna telefoonka yaga rakiban xogaha yaga daaran call inta xog baanu raadinayna waqtiga ugu badan waxa laga yaabaa inaad adigu amal kala qabsatay laakiin anagu xog baan raadinayna maraan siyaasi la xiriir maraan xildhibaan mar qof intaan xog raadiyo haddaan wax kala raadin lahaa heer weyn baa ka gaari lahaa marka xogtaa soo qoray dad badan baa dhaylasanaya laakiin waxaan ogaa midowga iyo xisbigan cusub iyo xogaha soo socda ayaan ogaa inaan ka hor dhaco ayaan diiday isla galabta lagu dhawaaqay oo xisbiga marka yaa kamid ah xisbigan waxaa ku midoobay Saacid Shirdoon waa musharaxa xisbiga Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug Islow Ducaale nin la yiraahdo asna wasiiraha Khaliif Saalax Fahad Yaasiin sidoo kale Taabid oo gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaa iyo rag waaweyn oo fara badan oo aan deetirin karin oo aan mid u sheegi karin ayaa ku midoobay oo isbahaysi samaystay
marka inta marka laga yimaado saacid shirdoon ayaan rabaa inaan guda galo waxaan iri saacid wuxuu noqon doonaa madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh bedeli doona ama wuxuu noqon doonaa qofka labaad ee laga guuleysto dhibcaha hoose oo finaalka taga ayuu noqon doonaa sababta aan ku leeyahay waxa weeye afartan qodob oo uu saacid ka diyaarsan yahay waxa weeye horta lambar 1 wuxuu haystaa team adag oo wax badan gooya oo Soomaali oo dhan ka kooban ayuu haystaa oo taas waxay muujinaysaa inuu noqon doono madaxweynaha Soomaaliya inta markii laga yimaado sidoo kale waa siyaasiga kaliya ama musharaxa kaliya oo muddo hal sano ah ololahan ku soo jiray oo aan jiifsan oo aan joogin oo marba magaalo taagan oo wax aruurinayo oo dhinaca diyaar garowga iyo isku xirka ma maleyn kadib oo ninkaas wado iyo inta shiro hadda mucaaradkii hadda socday ninka kaliya isku waday oo hadba meel ma aragtay shirar lagu qabanayay ayuu ahaa oo dabada ka riixayay oo wax karkarinayay oo dhankaas ma aragtay in isbedel uu yimaado aad u doonayaan qodobka kale marka laga yimaado waa musharax inta badan nimankan hadda reer Muqdisho hadday ahaan lahayd qayb ka wata qolooyinkan kale oo daarood qayb ka wata dhan walba dad ka wata qodobka saddexaad waa nin haysta taageerada Kenya Ethiopia iyo wadamada deriska iyo dhowr wadan oo ay ka mid yihiin oo Soomaaliya arrimaheeda daneeya nin taageero ka haysta weeye oo aan diidmo xoogan kama muujinayaan marka isku soo wada duube waa musharax kaliya ee musharaxnimadiisa cadeeyay diyaarsan mucaaradnimadiisa wata waa mucaarad toos oo la yaqaan dhinaca diyaar garowgana dad aan caadi ahayn oo elite siyaasadda Soomaaliya ahaa ayuu haystaa dhinaca qarashaadkana aad buu uga dhisay yahay sida ila tahay oo la ii sheegay marka sidaan oo kale Xasan Sheekh Maxamuud dadku may filayn inuu madaxweyne noqon doono waagii hore laakiin wuxuu ahaa nin intaan hadda ninkan uu ka dhisan yahay saacida ka dhisan ayuu ahaa marka waxa laga yaabaa sidii Xasan Sheekh Maxamuud odagu dad badan oo dhayalsanahayo in uu bud ka soo dhaxdhaho ayaa laga yaabaa dhaqdhaqaaqiisa durba dawladda walaac bay ka muujisay mucaaradku walaac bay ka muujiyeen intaas rabaa marka inaan uga baxo saacid shirdoon inta marka laga yimaado qodobkeena labaad Nairobi shir baa maanta ka furmay shirkaas waxa isugu yimid golaha mustaqbalka Soomaaliya golahaas oo ay ku midaysan yihiin Jubaland Puntland iyo golihii samata bixinta ay ku midaysan yihiin shirkaas waxa loogu yeeray xubno horay loo qabtay ayaa loogu yeeray waa la isku yimid madaxweynihii hore Sheekh Shariif baa ka soo qayb galay iyo ra'iisul wasaarayaashii hore marka waxa looga wada hadlay asagana xaaladda siyaasadeed ee wadanka caawa saqdhexa ayaa la filayaa inay warmurtiyeed ay soo saaraan haddii kale inay biri soo saaraan ayaa la filayaa oo ay war soo saaraan sidoo kale qodobka ugu weyn oo la sugayo waxa weeye Puntland iyo Jubaland waxay ku dhawaaqi doonaan in bishan dhamaadkeeda inay bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya inay bilaabi doonaan ayaa la filayaa sababtoo ah xildhibaanada mandate-koodu waa gabagabo maalmo yar baa ka haray qaarkood waa dhamaaday qaybna wax yar baa u haray marka ayagu waxay guda geli doonaan inay soo xulaan xildhibaanada aqalka sare oo Kismaayo qayb lagu soo xulo qaybna qolada Puntland ay soo xusho ogow welina doorashadii iyo qaabka ay noqonayso xasan weli wuxuu ku dhagsanayaa doorashadii qof iyo cod ayuu weli ku dhigay marka qaabka ay noqonayso ma doorashadii weli lagu heshiin ayadoo marka lagu heshiin ayagu tilaabo qaadi doonaan oo ma taqaanaa sanataradii ay soo dooran doonaan marka waxay ka dhigan tahay in dagaal xoogan oo markale dawladda iyo Jubaland iyo Puntland iyo mucaaradka iyo golaha haybad qaran oo hadda soo baxay oo ayagu carcar leh inay bahashu ka sii dari doonto
bilahan soo socda inay siyaasaddu jahay yeelan doonto in aan la isku wareeri doonin in madaxweynaha Soomaaliya uu cadaan doono in xaaladdu ay cirka gaari doonto barnaamijka siyaasadeed ee waddanka hadda waa karkaraya bislaad iyo tag miyaad garanaysaan tag ma garanaysaan barnaamijku sida raashinku markuu karo dadkii misigada duwan jiray iyo dadkaas ay yaqaan iyo shurbada kulaylku markuu ka barto tag wax yar oo dhaqdhaqaaqa oo raashinku sameeyo oo kulaylka ay ku dareemayso ayaa la yiraahdaa baashu markay bislaato oo ay karkarto kadib waxa ku xiga inay taqdo ayaa ku xiga marka siyaasadda maalmahan soo socda waa ay taqaysaa halkan ku xirnow ha moogaan waa in salaamaya jaalayaal meel kasta joogtaan